BBC Afrikada bari saacadu waa 2 duhurnimo oo gow ah waxaad naga dhageysan kartaan wajadaha gaagaaban FM-yada iyo boggeena internetka ah ee bbcsomali.com kulanto wacan duhur wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan waa duhurnimo Isniin ah bisha Agoosto tahay 24 sanadka 2020 waxaad sidoo kale toos nooga dhageysanaysaan boggeena Facebook ee BBC News Somali idaacadan duhurnimo waxaa idin soo jeedinaysaa anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah maxkamad ku taal Muqdisho oo xukun ku riday mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo ay ku heshay musuqmaasuq madaxweynaha Jubbaland oo goordhaweyd gaaray Garowe si uu kulan ula qaato dhigiisa dani dalka New Zealand waxaa ka bilowday dhageysi maxkamadeed oo xukun loogu riday ninkii muslimiinta badan ku laayay masaajidda waxaa kaloo aad maqli doontaan maanta haddii la meel mariyo oo taas madaxweynuhu soo gudbiyey ay baarlamaankuna saxeexaan waxaan helaynaa qondo ku jirta sharci isla markaana dumarku ku soo baxaan waa dumarka Somaliland oo dadaal ugu jira si ay markaa doorashada soo socota uga heli lahaayeen kuraas fiican qodobadaas oo faahfaahsan iyo wararka ciyaaraha ayaad sidoo kale ku dhageysan doontaan idaacadan duhurnimo oo ay wada jirka u soo saareen Maxamed Cabdiraxmaan iyo Ciise Xaaji Cabdulle waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da iyo Cabdiqaadir Yuusuf Cali mahadsanid Kawthar magaalada Kenosha ee gobolka Chicago ayaa waxaa isugu soo baxay dibadbaxyaal careysan kadib markii ay booliska toogteen nin madow ah boqolaal dibadbaxyaal ah ayaa buux dhaafiyay xarunta booliska waxaana sidoo kale dab la qabadsiiyay gawaari badan hase yeeshee booliska ayaa falalkaasi uga jawaab celiyay sunta indhaha ka ilmeysiisa waxaana magaalada lagu soo rogay bandow ninka madowga ah oo lagu magacaabo Jacob Blake ayaa la sheegay in haatan ay xaaladiisu liidato Zach Rodriguez oo ah sarkaal ka tirsan dawladda hoose ayaa sheegay in dhacdadani ay daaha ka qaadayso badqabka loo baahan yahay in wax laga qabto But what happened here tonight highlights that we need waxa halkan ka dhacay waxay iftiiminayaan in aan u baahannahay kaamirooyinka jirka ma aha ku xigeenada oo kaliya laakiin booliska magaalada oo dhan ayaa sidoo kale u baahan but our city police department as well xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku sugan Israa'iil waxaana safarkaasi qayb ka yahay socdaal uu ku marayo bariga dhexe wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in wadahadalladaasi diiradda lagu saarayo sidii loo xoojin lahaa dadaalada Israa'iil wado kaasi oo ay ku doonayso in ay si caadi ah ku soo celiso xiriirka carabta kala dhaxeeyo laba qarax bambaano ayaa lagu soo waramayaa inay ka dhaceen dalkaasi Philippines kaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof oo askar u badnaa qaraxa ayaa gaar ahaan waxa uu ka dhacay jasiiradda Jolo oo ay ku sugan yihiin ururka Islaamiga ah ee Abu Sayyaf dadaalada sharciga cusub loogu qorayo dalka ay colaadda daashatay ee Suuriya ayaa dib uga bilaabanaya magaalada Geneva wareegii hore ee wadahadallada ayaa waxaa maalgelisay qaramada midoobay kaasi oo ku soo dhamaaday is-afgaradwa waxaana qabanqaabiyaasha xilligaasi walaacay ka muujinayaan suurtagalnimada ah in shirkaasi dib la isugu soo laabto dacwadoogayaasha New Zealand ayaa sheegay in ninkii cadaanimada ku weyneed ee 51 qof ku dilay laba masaajid ay qorsheenayo inuu qaado weeraro dheeraad ah si uu dad kale u laayo waxay sheegeen markii la qabanayay inuu ku sii socday inuu doonayo inuu qaado weerarkii saddexaad ugu dambeyntiina booliska dalkaasi Austria ayaa xabsiga u taxaabay nin looga shakiyay in sabtigii weeraray hogaamiyaha bulshada Yahuudda ee Graz ninkan oo ku dhashay dalkaasi Suuriya ayaa sidoo kale qirtay inuu qaaday weeraro Yahuud nacayb ku salaysan warkii duhurnimada anaga inta Kawthar aad baad u mahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa Cabdiqaadir Yuusuf Cali markana u diyaar garoow qaybaha kale ee idaacadeena duhurnimo duhur wanaagsan mar kale dhamaantiin baan ku bilaabnay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa dambi xatooyo xoolo dadweyne ah ku heshay 4 agaasimo oo ka tirsan
wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya oo uu ku jiro agaasimaha guud. Afarta agaasime ayaa ka mid ahaa 9 eedeysane oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo loo haystay lunsasho hanti dadweyne, balse maxkamadda ayaa wax dambi ah ku weysay 5 kale oo 2 ka mid ah ay hayeen gabdho. Haddaba xukunka maxkamadda gobolka ee Saaka waxaa warbixintan ka diyaariyay wariyaha BBC-da ee Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan. dacwadda loo haystay 9 eedeysane ayaa soo bilaabatay bishii Abriil ee sanadkan wax yar uun kadib markii kiiskii ugu horeeyay ee fayraska corona laga sheegay wadanka markaasoo culays weyn uu soo koray wasaaradda caafimaadka kaasoo ku aadanaa maareynta cudurka COVID-19 oo dunida kale ee hormartay jilbaha dhulka u dhigay. eedeysanayaasha 9 ah waxay maxkamadda gobolka ka soo hormuuqdeen marar fara badan iyadoo dhowr iyo 10 fadhi oo la qabtay ay doodo isdhaafsadeen eedeysanayaasha iyo qareenadooda oo dhinac ah iyo kooxdii dacwadda soo oogtay. aakhirkii maanta ayuu garsoor maxkamadda gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Siciid Axmed oo ku dhawaaqay xukunka 9 eedeysane oo 4 ka mid ah lagu helay lunsasho hanti dadweyne halka 5 kale waxba lagu waayay. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ayuu garsooruhu sheegay in lagu helay dambigii lagu soo oogay isla markaana lagu xukumay dhowr iyo 10 sano oo xariga. eedeysanaha koowaad Cabdilaahi Xaashi Cali ina Khadiijo Xaaji Maxamed Xirsi 61 jir ah ku dhashay Hiiraan degan degmada Xamarweyne ahna agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya kuna eedeysan qodobada 241 363 366 375 376 lala akhriyay 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobka 363 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna ku xukuntay 9 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 59 milyan 173,000 shilin Soomaali ah una dhiganta $2,366. xukunku waxa uu helinaya kareebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobka 101 iyo 102 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. sidoo kale agaasimihii waxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka ayaa isna lagu helay dambigii lagu soo oogay ee ahaa xatooyo hanti dadweyne. eedeysanaha labaad Maxamuud Buule Maxamuud ina binti Sheekh Nuur Maxamed 52 jir ah ku dhashay Xamar degan wada jir ahna agaasimaha waxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya kuna eedeysan qodobada 241 363 366 375 376 lala akhriyay 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobada 363 366 375 waxaana ku xukuntay 18 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 59 milyan 173,000 shilin Soomaali ah una dhiganta $2,366. xukunka waxa uu helinaya kareebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobada 101 iyo 102 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. mahdi abshir maxamed madaxa xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka ayaa isna lagu xukumay 12 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo gaaraya $2,366. sidoo kale Bashiir Cabdi Nuur oo ah xisaabiyaha mashruuca malaariyada iyo HIV/AIDS ee wasaaradda caafimaadka ayaa isna lagu xukumay 3 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo gaaraya $1,183. labada gabdhood ee kaliya ee ka midka ahaa 9 eedeysane ee ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee loo haystay musuqa iyo wax isdabamarinta ayaa lagu waayay dambiyadii loo haystay waxaana la amray in la sii daayo. eedeysanaha shanaad Naciima Cabdilqaadir Maxamed ina Xaliime Cabdi Sheekh 34 jir ah ku dhalatay degan Xamar ahna maamulaha mashruuca taranka iyo hooyada reproductive health ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya kuna eedeysan qodobada 241 366 366 375 lala akhriyay 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. maxkamaddu waxa ay ku weysay dhammaan qodobada lagu soo eedeeyay eedeysanada waxaana dib ugu celisay xorriyadeeda. eedeysanaha sagaalaad Sumeeye Axmed Cismaan ina Duniye Cabdulle Cali 27 jir ah ku dhalatay Xamar degan howlwadaag ana xisaabiyaha mashruuca TB-da ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya kuna eedeysanayd qodobada 241 366 366 376 lala akhriyay 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. maxkamaddu waxa ay ku weeyday dhammaan qodobada lagu soo eedeeyay waxaana dib ugu celisay xorriyadeeda. Farax Yuusuf Maxamed oo ah maamulaha mashruuca wacyigelinta caafimaadka Cabdiqaadir Weheliye Afrax oo isna ah agaasimaha waxda daaweynta qalabka iyo xarumaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka Axmed Aadan Maxamed oo isna ah agaasimaha waxda caafimaadka guud ayaa dhammaantood maxkamaddu ku weysay eedihii loo haystay waxaana la amray in la sii daayo. garsooraha maxkamadda gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Siciid Axmed ayaa sheegay in agaasimayaasha la xukumay ay u furan tahay inay raacfaan qaataan muddada sharci
sharcigu u ogol yahay kiiskan ayaa noqonaya kii ugu ballaarnaa ee saraakiil ka tirsan dowladda federaalka inta lagu soo oogo musuqmaasuq iyo lunsasho hanti dadweyne haddana xukun uu ku dhaco Soomaaliya ayaa sanad kasta kaga jirta kaalinta ugu sarreysa dalalka ugu musuqa badan dunida qiimaynta la sameeyo waxayna arrintaasi walaac badan ku haysaa dalalka iyo hay'adaha taageera dowladda Soomaaliya Ibrahim Maxamed Aada BBC Muqdisho markana madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa goor dhaweyd gaaray magaalada Garowe iyadoo lagu wado in halkaas uu kula qaato dhigiisa Puntland ee Saciid Cabdullaahi Deni labada hogaamiye ayaa ka maqnaa kulankii madaxda Soomaaliya ay go'aanka uga gaarayeen doorashada soo socota kaasoo jimcihii lagu soo gunaanaday magaalada Dhuusamareeb wariye Axmed Caawil Jaamac ayaa faafahinta nooga soo diray Garowe كوثر غوردويد waxaa ka soo degay garoonka magaalada Garowe wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan waxaana garoonka ku soo dhaweeyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo qaybo kamid ah bulshada magaalada Garowe labadan madaxweyne kama aysan qayb galin shirkii Dhuusamareeb 3 oo dhawaan madaxda ka qayb gashay ay sheegeen in heshiis laga gaaray xagga doorashada waxaana la filayaa in arrimahaasi socdaalka madaxweynaha Jubbaland uu ku saabsan yahay doorashadii 2021 dalka Soomaaliya la filayo inay ka dhacdo labadan madaxweyne xilliga uu shirku ka furmay Dhuusamareeb 3 waxa jirtay in madaxweynaha Puntland uu ku maqnaa dalka Djibouti madaxweynaha Jubbaland uu jiray magaalada Nairobi oo shalay ka soo laabtay madaxweynaha Puntland xilliga uu shirku uu gabagaboobay waxa uu ku sugnaa magaalada Garowe iyadoona intaas kadibna uu soo baxay warmurtiyeed ay ku midaysan yihiin labadan maamul ay ku sheegayaan in aysan quseen shirkii ka dhacay magaalada Dhuusamareeb waxa la filayaa maalmahan in madaxweynaha Jubbaland uu ku sugnaado magaalada Garowe isla markaasna laga hadlo doorashada 2021 la filayo in ay dalka Soomaaliya ay ka dhacdo iyo waliba qodobada ay doonayaan in ay ka hadlaan ama doorashada sida ay u doonayaan in ay ka hadlaan marka Kowsaray waxyaabaha ka soo siyaada inta uu ku sugan yahay madaxweynaha Jubbaland magaalada Garowe idaacadaha dambe ayaad ku maqli doontaan waxaana la filayaa goor dhow in ay labadan madaxweyne ay si wada jira dadka ay ula hadlaan sida Axmed sheegay wixii ka soo kordhay idaacadeena dambe ayaad ku maqli doontaan halka aad naga dhageysanaysaan waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba maxkamad ku taal New Zealand ayaa loo sheegay in cunsuri Australia uu dhashay oo 52 muslimiin ah sanadkii hore ku laayay laba masjid oo ku yaala magaalada Christchurch uu damacsanaa inuu weeraro mid saddexaad si uu u laayo dad tiro badan maxkamadda 4 maalmood dhageysan doonto eedeymaha ka dhanka ah dilaagaasi si ay xukun ugu rido ayaa waxa ka hor hadlay dad ay ku jiraan ehelada muslimiinta la laayay hooyo wiilkeeda ku weeday weerarka ayaa sheegtay in ninkaasi aanay caafin doonin faafaynta warkaasina waxay noo haya Ciise Xaaji Cabdulle Tarant ayaa lagu soo dacweeyay inuu dilay 51 qof isku day dil uu damacsanaa inuu 40 qof oo kale u geysto iyo dacwad fal argagixisnimo waa markii ugu horeysay oo qorshaha uu ninkaasi damacsanaa maxkamad lagu soo bandhigo Tarant oo 29 jir ah ayaa wajihi doono xukun xabsi daa'ima xukunkaasi oo noqonaya mid aan New Zealand horey uga dhicin maxkamadda horteeda ayuu maanta kula kulmay qaar ka mid ah dadkii weerarka ka badbaaday iyo ehladii dadkii ku dhintay weerarka dacwadayaashu waxay sheegeen Brenton Tarant uu bilooyin ka hor inta uusan weerarka qaadin soo iibsaday qoryaha sida danadooriga u dhaca iyo kumanaan rasaasa dacwad ooge Barnabas maanta Isniina wuxuu sheegay in Tarant weerarkaasi sanad ka hor uu qorsheynayay wuxuuna intaas ku daray ujeedadiisu inay ahayd in tirada ugu badan ee dad ah uu halkaasi uu ku dilo He obtained a large amount of information about mosques in New Zealand, predominantly within the South Island. macluumaad badan ayuu ka helay masaajidda ku yaal New Zealand gaar ahaan kuwa jasiiradda Koonfureed macluumaadka uu ka helay internetka waxaa ka mid ah faahfaahin ku aadan qaab dhismeedka masaajidda sawirro gudaha ah goobaha ay ku yaalaan iyo xog kale oo gaar ah sida xilliyada salaada iyo maalmaha muhiimka ah muslimiinta si uu xaqiijiyo in masaajidda ay ku sugan yihiin dad badan To ascertain when the mosques would be at their busiest. Maysun Salama oo hooyada dhashay Ata Maxamed oo kamid ah dadkii lagu dilay masjidka ayaa maxkamadda horteeda ka sheegtay in caalamku uusan u cafiri doonin Brenton Tarant dambiyadii
uu geystay. I can't forgive you. You gave yourself the authority to take the souls of 51 innocent people. kuma caafin karo waxaad isa siisay awoodda ah inaad goyso nafta 51 qof oo aan waxba galabsan dembiga kaliya ah ee aad ku arkaysay ayaa ah inay muslimiin yihiin waxaad dhaawacday 49 qof waxaadna mugdi gelisay rajada ay lahaayeen dad badan oo masaakiin ah waxaad argagax gelisay New Zealand oo dhan waxaadna murugo ku abuurtay caalamka oo idil ma filayo in caalamka uu ku caafin doono dembiga weyn ee aad ka gashay aadanaha oo dhan. And I don't think the world will forgive you for your horrible crime against humanity. weerarkaasi markii uu dhacay kadib inta ay bilba ka soo wareegin baarlamaanka dalkaasi ayaa 119 iyo hal cod ugu codeeyay in dib u haween lagu sameeyo haysashada hubka darandooriga u dhaca ee la midka ah kuwa ciidamadu qaataan isla markaasina hubkaasi la mamnuuco. dowladuna waxay go'aansatay in dadka haysta hubka sharci darrada ah inay gacanta dowladda ku soo celiyaan dowladuna ay magdhow ka siiso hubka ay soo wareejinayaan. mahadsanid ciise xaaji cabdulle wararkii cayaaraha ayaa inoo soo socda balse markan iyadoo dhowaan lagu wado in jamhuuriyadda iskeed uga dhawaaqday madaxbanaanida ee Somaliland ay ka dhacaan doorashooyinka golaha deegaanka iyo kuwa aqalka wakiilada ayaa dumarka waxay wadaan dadaalo ay ku raadinayaan matalaad u qalanta. Somaliland waxa aad ugu yar dumar ka haya xilalka la doorto ee siyaasadda. Nafisa Yuusuf Maxamed oo kamid ah dadka u ololeeya arrimaha dumarka ahna agaasimaha guud ee dalada haweenka ee Nagaad ayaan ka wareystay dadaaladaasi qadka telefoonka ayaynu igu warantay. doorashada soo socota waxaa nooga qorshaysan sanadkan waxaanu aad u sugaynaa kuna rajo weynahay in kootada dumarka la helo oo ah 22% in dumarkaas uu madaxweynuhu qoondada u saxeexay in ay ku soo bixi doonaan baa runtii noo qorshaysan doorashada soo socota ee sarkan golaha deegaanka iyo wakiilada. isla golaha wakiilada iyo kuwa deegaanka ee hadda jira matalaad aad u yar ay dumarka Somaliland ku leeyihiin marka maxaa hore u jirin oo aad hadda sameeynaysan si aad uga gudubtaan caqabadahaasi? hore ma jirin qoondada ku dhex jirta sharciga hore uma jirin laakiin maanta hadii la meel mariyo oo taas hay'adey uu madaxweynuhu soo gudbiyay ay baarlamaankuna saxeexaan waxa weeyaan waxaan helaynaa qoondo ku jirta sharci isla markaana dumarku ku soo baxaan marka sababtaasaanay hore ugu jirin. dad badan waxa ay matalaad yarida dumarka ee dhanka siyaasadda u tiriyaan odayaasha dhaqanka marka ma isku daydeen inaad dhankaasi xoogga saartaan oo aad iyaga qancisaan? kolley dadaalada naguma yara odayada dhaqankuna waa run waxay ka yihiin hormuud oo sababtoo ah inta badan waxaa dhici jirtay in marka inan iyo inan ay u taagan yihiin doorasho in inan kala door bido laakiin baaqiyo badan oo ay sameeyeen sanadkan odaya dhaqameedku waxay ballan qaadeen in aanay cidna haweenka maanta ka hormarin doonin marka qoondada loo abruufaray. odaya dhaqameedku maanta wax fiican bay sameeyeen inay taageerayaan qoondada haweenka marka kolley waan soo dhaweynaynaa taageeradoodaas waana rajaynaynaa in maanta ay helaan meelaha ay sidan oo kale u yar tahay matalaada dumarka waxaa jira qoondo loo gooyo haweenka marka ma rumaysan tahay inta ay xal u tahay dhibaatada idin haysata? horta nambarka imika la qoondeeyey waxa weeyaan 22% oo ah haweenka iyo dadka la haybsooco nambar badan maaha laakiin haddana markaad eegto caqabadaha badan ee ku gadaanaa haweenka waxay noqon doontaa wax lagu sii bilaabo oo muxuu ahaaye ah bilow maadaama aanay hore u helin wax sharci ugu jira ama aanay helin qoondadaas oo marnaba la meel mariyey marka kule waxay noqon doontaa wax bilowa laakiin mar walba way sii kordhi doontaa sida aan rajeynayno. taasi waxay ahayd Nafisa Yuusuf Maxamed oo kamid ah dadka u ololeeya arrimaha dumarka ahna agaasimaha guud ee dalada haweenka ee Nagaad Facebook eego qodobkaas dhageystayaasha raayigooda ka soo dhiibtay mid iyo laba hadii aan soo qabto Ismaaciil Macalim waxa uu joogaa Wisil waxa uu leeyahay dumarka Somaliland ee dadaalka ugu jira si ay doorashada soo socoto uga heli lahaayeen
kuraas fiican runtii waan soo dhaweynayaa hase yeeshee waxaa xukuumadda looga baahan yahay inay haweenka qoondadooda siiso si loo helo hanaan wax qaybsi oo lagu wada qanacsan yahay ayaa uu leeyahay dhegeystaasi markana wararkii ciyaaraha haddii aan eegno booliiska Faransiiska ayaa sheegay inay xireen dad gaaraya 148 qof kadib markii ay isu soo bax rabshado wata ay ka dhashay guushi Bayern Munich ay hal iyo eber uga adkaatay kooxda PSG ee finalka koobka Champions League ee dhacay xalay. Isku dhacyadan ayaa waxa uu ka dhacay goobta caanka ah ee Champs-Élysées iyo agagaarka garoonka Parc des Princes Stadium halkaas oo ay taageerayaasha isugu soo baxeen inay ciyaarta ka daawadaan shaashada weyn. Waxaa la gubay gawaari halka la burburiyay dukaamada daaqadaha dukaamada waa sida ay sheegeen booliiska. Kooxda PSG waxay doonaysay inay markii ugu horeysay ku guuleysato koobka horyaalada Europe ee Champions League balse nasiib daro waxaa hal iyo eber uga adkaatay kooxda Bayern Munich sidaasna ay ku raacday guusha. Wararkaasi ciyaaraha oo inta ka dheer waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena ciyaaraha oo maalin walba Isniin aad dhageysataan dunida iyo maanta inta ka horeysa markana waxaad ku soo dhawaataan baafinta maanta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC da magaalada Nairobi idinkaga soo tibinaya anigoo ah Faisal Bishaar Aligo iyo Caasha Saciid Xasan. Caasha mahadsanid Aligo. baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Faadumo Axmed Jaamac oo joogto Laascaanood waxay baafinaysaa Farxiye Axmed Jaamac waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Liibiya 2010 haddaba haddii ay maqlayso Faadumo Axmed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Farxiye Axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Laascaanood. Maxamed Cali Hilowle oo jooga Baraaw waxa uu baafinayaa Darmaan Maxamed Cali waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Liibiya sanadii 2004 haddaba haddii uu maqlayo Darmaan Maxamed Cali ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Maxamed Cali Hilowle iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay marka. Nuur Cabdi Ducaale oo jooga Boorama waxa uu baafinayaa Jamiila Cabdi Ducaale waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Suudaan 2014 haddaba haddii ay maqlayso Jamiila Cabdi Ducaale ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Nuur Cabdi Ducaale iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boorama. Khadiija Cali Xinfir oo joogta Bolo Sheekh waxay baafinaysaa Cali Xinfir Cumar waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Talyaaniga sanadii 1999 haddaba haddii uu maqlayo Cali Xinfir Cumar ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Khadiija Cali Xinfir iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay marka. Idris Jaamac Subagle oo jooga Boorama waxa uu baafinayaa Shamis Jaamac Subagle waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Itoobiya 2010 haddaba haddii ay maqlayso Shamis Jaamac ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Idris Jaamac iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boorama. Xasan Maxamed Jaamac oo jooga Qoryooley waxa uu baafinayaa Samiiro Faarax Jaamac waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Cameroon sanadii 2000 haddaba haddii ay maqlayso Samiiro Faarax Jaamac ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Xasan Maxamed Jaamac iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay marka. Hibo Cawaale Cartan oo joogto Boorama waxay baafinaysaa Suleymaan Cawaale Cartan waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Egypt 2012 haddaba haddii uu maqlayo Suleymaan Cawaale Cartan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Hibo Cawaale iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boorama. Muxubba Xasan Warsame oo joogto Wallaweyn waxay baafinaysaa Samiiro Axmed Warsame waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Sacuudiga sanadii 2000 haddaba haddii ay maqlayso Samiiro Axmed Warsame ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Muxubba Xasan Warsame iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay marka ama telefoonka nambarkiisu yahay eber 25 26 eber 6 72 44 99 eber 5. Ibraahim Cilmi Boqorre oo jooga Boorama waxa uu baafinayaa Mustafa Cilmi Boqorre waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Greega 2014 haddaba haddii uu maqlayo Mustafa Cilmi Boqorre ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Ibraahim Cilmi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boorama. Abuukar Saalim Xasan oo jooga Afgooy waxa uu baafinayaa Ramadaan Abuukar Saalim waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Kenya sanadii 2000 haddaba haddii uu maqlayo Ramadaan Abuukar Saalim ama ay jirto cid garanayso fadlan
fadlan warkiisa ha la gaarsiiyey abuukar saalim xasan iyadoo wixii warar loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay marka. muuse faarax dhimbil oo jooga boorama waxa uu baafinayaa xabse aways waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Itaaliya 2010 haddaba haddii ayna maqlayso xabse aways ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo muuse faarax dhimbil iyadoo wixii warar loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorama. xaliime axmed digaale oo joogta sablaale waxay baafinaysaa xasan axmed digaale waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Mareykanka sanadii 2011 haddaba haddii uuna maqlayo xasan axmed digaale amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo xaliime axmed digaale iyadoo wix warar loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay marko amaba telefoonka nambarkiisu yahay eber 25 26 eber 7 73 45 eber 9. shukri daahir yunis oo joogta boorama waxay baafinaysaa Zainab Axmed bulaale waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen 2012 haddaba haddii ayna maqlayso Zainab Axmed bulaale ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo shukri daahir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boorama. ciise maxamed ibraahim oo jooga Walaweyn waxa uu baafinayaa Mandeeq ciise maxamed waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Talyaaniga sanadii 1999 haddaba haddii ayna maqlayso Mandeeq ciise maxamed ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo ciise maxamed ibraahim iyadoo wixii warar loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay marko. sacaada cabdi alaale oo joogta boorama waxay baafinaysaa Maryan Cabdi Dubad waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Liibiya 2010 haddaba haddii ayna maqlayso Maryan Cabdi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo sacaada cabdi iyadoo wixii warar loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorama. xawa maxamed geedi oo joogta Buulamareer waxay baafinaysaa Safiya maxamed geedi waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Hindiya sanadii 2003 haddaba haddii ayna maqlayso Safiya maxamed geedi amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo xawa maxamed geedi iyadoo wixii warar loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay marko. xuseen faarax salaad oo jooga boorama waxa uu baafinayaa cabdi salaad ciige waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Itoobiya 1999 haddaba haddii uuna maqlayo cabdi salaad ciige ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo xuseen faarax iyadoo wixii warar loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boorama. maxamed cali geelle oo jooga Janaale waxa uu baafinayaa dadka kale ah Firdawsa cali geelle xasan cali geelle waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka Canada sanadii 2002 haddaba haddii ayna maqlayaan Firdawsa cali geelle iyo xasan cali geelle amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkooda ha la gaarsiiyo maxamed cali geelle iyadoo wixii warar loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay marko. muuse maxamed cabdille oo jooga Afgooy waxa uu baafinayaa Cumar Xasan Cabdille waxa ugu wardambeysay 1995 haddaba haddii uu maqlayo Cumar Xasan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo muuse maxamed cabdille iyadoo wixii warar loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marko. Sabriin aadan Yuusuf oo joogta Walaweyn waxay baafinaysaa Busra Axmed Yuusuf Cali waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Ingiriiska sanadii 1993 haddaba haddii ayna maqlayso Busra Axmed Yuusuf Cali amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo Sabriin aadan Yuusuf iyadoo wixii warar loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay marko. ladan xasan cabdi oo joogta Sablaale waxay baafinaysaa xaawa xasan cabdi waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Mareykanka 1999 haddaba haddii ayna maqlayso xaawa xasan cabdi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo ladan xasan cabdi iyadoo wixii warar loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay marko. Cabdiraxmaan cali maxamed oo jooga Kuntuwaare waxa uu baafinayaa Ibraahim cali axmed warsame waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Liibiya sanadii 1995 haddaba haddii uu maqlayo Ibraahim cali axmed warsame amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo Cabdiraxmaan cali maxamed iyadoo wixii warar loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay marka. ruqiya cali yaasiin oo joogto marka waxay baafinaysaa Siraad Axmed Yaasiin waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Hong Kong 2012 haddaba haddii ayna maqlayso Siraad Axmed Yaasiin ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo ruqiya cali iyadoo wixii warar loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marko. xaawa xasan raage oo joogta Janaale waxay baafinaysaa Sucaad xasan Rooble waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Hong Kong sanadii 2000 haddaba haddii ayna maqlayso Sucaad xasan Rooble amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo xaawa xasan raage iyadoo wixii warar loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay marko. baafinta ugu dambeysay maanta waxay naga soo gaartay Fartuun Siyaad Cabdulle oo joogta marka waxay baafinaysaa Faadumo Cabdi Cabdulle waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Ingiriiska 2000 haddaba haddii ayna maqlayso
shaqayso Faadimo Cabdi Cabdulle ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Fartuun Siyaad Cabdulle ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay marko baafintina maanta waa naga intaas Aisha iyo Faisal way ku maadsan yihiin barnaamijkaasi baafinta waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena qodobada ugu muhiimsanaa idaacadan sii dhamaanaysa waxaa kamid ah maxkamad ku taal Muqdisho oo xukun ku riday mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo ay ku heshay musuqmaasuq warbixintaas oo faahfaahsan dabcan waxaad kaga bogan kartaan boggeena internetka ee BBC News Somali inta ayanu ku soo gabagabeynayna guud ahaan idaacada duhurnimo oo ay wadajir u soo saareen Maxamed Cabdiraxmaan iyo Ciise Xaaji Cabdul anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi ayaan idin socodsiinayay tan iyo kulankeena xiga duubaha awoodda la yiraahdo 5 galabnimo inta ka horeysa waa anagu isku duuban oo idin leh sida iyo nabadgelyo